السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحابته هل كان يقدر وانا يسميل والبوشكتان يسولبون مقالكيجو ومركا يدين سو قريبة مقالك محرر بقينا بالدور قضب أو ير أو كوبان عن متبقين ير عن كدل استاجو دمان تود نقص هبسن فايل كا إبستين فايل أنت عن فايل كان شغادة بدن كوتشرته أنت عن كذا ما يستريو وحير هلا يعذر دارو وحن ربع مقال كان إن كوفيريو gabadhii xalay aan ka hadlay aan iri waa Soomaali magaceeda aan ku sheegay Saadiye Ibrahim ayaa ilaa iyo 4 dal oo kala duwan ayaa lagu sheegayaa inay u dhalatay mar waxa la leeyahay waa Soomaali oo articles baan idin hayaa sheegay inay Soomaali tahay mar waxa la leeyahay waa Togolese oo Togay u dhalata mar waxa la leeyahay waa Nigerian marna waxa la leeyahay waa Ivory Coast ama waa Ivorian afartaas dal ayaa 4 article oo kala duwan ka qoriyay xalay article-kii aan qaatay wuxuu ahaa article sheegayay inay Somali descent ay tahay laakiin kuwa kale ayaan arkayaa dad baa ila wadaagaya meelo badan bay wax ka soo baxayaan in yar baan qodobka ku dul hakanaya waxaan kala fiirinayaa sawir cusub oo file-ka ka soo baxay oo Epstein uu canug yar ruugayo ama uu qaniinayo oo loo fasiray inuu cunayo maalmahaana waxa socotay xoga ku saabsan oo faylkan ku jirta in ilmaha cuni jireen nimankan Epstein iyo ragiisu arintaasna waxay noqotay mid saacadiye la soo dhaafay si weyn buuq oga dhalisay gudaha dalka Mareykanka waxaana la leeyahay ciyalka la waayo dhan nimankan way cuni jireen I don't know bal sawirkan waa in la wadaagayo anigu aan gacanteeda uga soo dhax saaray faylka si aan bal u confirm gareeyo wararka ay warbaahintu sheegayso iyo ugu dambeyn ilaa iyo 6 dawladood oo kala duwan oo Mareykanku uu ka mid yahay ayaa baaritaano madax banaan sameynaya oo ku saabsan faylkan dawladihii caalamka oo dhan ayaa qaylinaya cid walba waxay bilowday baaritaan ka dhana dawladahan maxay yihiin maxay baarayaan in yar baan ku dul hakan doonaa sidoo kale waxaan soo helay wasiiradii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Kenya Aamina Maxamed gabadha la oran jiray Soomaaliga ahayd ee Kenya wasiirka ka ahayd oo ayaduna Epstein Africa saddex qaab ba way uga duwanaayeen dumarka kale ee Afrikada marka ugu horeysa waa xagga magacyada ay gabdhaha iyagu qaataan ma ahayn magacyada ay dadka kale Afrikaanka ay qaataan haday Saadiye tahay haday Xalimo tahay haday Fartuun tahay haday Xamdi tahay حمدي عربتو رجع أبحان دمرك ولا بحان دمرك هذا ولا بحيان حمدية وحيد أحان لكن حمدي ومقع رجع لكن كان مقع دمر بوكية مركا سيدا سعدية ويا هاي مقع أي أنا وعين الله هاي مركا مقع دمرك يجوا كيجدوا ولا الأفريقيانك مركا لبعض إسكينك دمرك يجوا إسكين لايت بحيان مركا لو في ذلك كانت أفريقيان كان عربتو أهين دمرك نجوا يكدوا ولا هذا مركا بليتش كيف ماله البجاري ولا السوقاري iyo waliba ugu dambeyn xagga sanka dadka Afrikaanka ah ee qaaradda ah ama West Africa haadana ama East Africa haadana dumarkoodu waxay ahayd dumar deesankoodu uu weyn yahay waa dad Bantus away hadda marka waxa soo baxday oo Yurubta Turkiga iyo meelaha sanka in la soo dhuubay hadii marka gabadha madowga ah ay inta bulo ka saarato oo isbilij garayso sankiina soo dhuubato magaciisa Soomaalida ay qaadato baladu ka hadlayso Soomaalida in kala sheeg How do you know? Very challenging somehow. Waarintaas mid hadda taagan. Gabadhan xalay aan ka hadlayaan iri Saadiyo Ibrahim ayaa waxa la sheegayaa inay dawlado badan ay u dhalatay. Ilaa ay hadda ay u dhalatay ma garanayo. Ma ka faham garan karayo. Article-ka anigu aan soo qaatay waxa qoray wakaalad la yiraahdo DN Africa ayaa qortay. Waxay leedahay gabadhan waa Somali descent bay leedahay. Waa gabar asalkeeda Soomaali ka soo jeeda kadibna satal garaysay dalka Faransiiska la yiraahdo samaysatay business product productigaas ayaa waxa la geeyaa dalka la geeyo waxa ka mid ah Djibouti marka arkay baa Somali descent iyo alaabteeda in Djibouti la geeyo connection kalkaas aan ka xira laakiin meel badan baa la geeyaa si walba ha ahaato dadka Faransiiska ku hadla ee Afrika degan way isdhex galaan Djibouti dad badan oo West Africa ka imaada ayaa la ganacsada de madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle gabdhiisa gabdha kamid ah taa niman Ivorian qaba Ivory Coast qaba marka way isku dhex furan yihiin waa arin caadi ah ma ahan ceeb dadka luqadda Faransiiska ku hadla Djibouti way u dhuntuleelaan si walba ha ahaato marka gabadhan
article kalena wuxuu leeyahay waxay u dhalatay dalka Togo la yiraahdo ay u dhalatay baa leeyahay waxaan kaloo arkayaa in la leeyahay may waa Ivorian waa Ivory Coast dadna waxay leeyihiin may waa Nigerian ilaa hadda maxay tahay lama yaqaan laakiin magacan Saadiye la yiraahdo magaca ay Afrikada iyo West Africa la isticmaalaan ma magaca West Africa laga isticmaalaa ma magaca Soomaalida iyo dadka Soomaalida la degan maybe Ethiopianka dadkaas isticmaala asalkiisuna magaca luqad Carabeed weey dadka muslimka ah ee West Africa degan xataa hadii ay magacyada muslimka qaadanayaan sida anagu aynu dhigno uma dhigaan salahan oo kale markay Faaduma anagu baan dhahnaa laakiin ayagu Fatima bay dhahaan anagu Aisha dhahnaa ayagu Aisha bay dhahaan marka mar walba qaabka loo dhigayo magaca ay qaabka loo qorayaa dadka muslimka ee Afrikada waan ku kala duwanahay gabadhan magaceedu soo qoran yahay ayaa marka wuxuu noqday mid yaab leh wakaaladihii waxaan wax ka qorayeen way ku doodsan yihiin marka maadaama aan arkay gabadha in lagu doodsan yahay waxaan go'aansaday videogaas inaan dajiyo marka labaadna inaan cudur daar ka bixiyo iraahdo ma doonayno meeshan uma joogna gabdhaha naga aan cayno markaan lahaa gabdhaha ma raba inaan taabto haday maalinkii dhaweyto sankawda gabdhaha iyaga ninkii difaaci lahaa baraha laakiin waxa musiibada ee filekan ku jira diidaya inoo dhuntaan intentionka inta way marka wixii halka ka yimaada oo war website qoray oo laga yaabo inuu sax ahayn tan reference ahaan u isticmaal wax ka soo laabtaan arintaas u sheedan bay ka ahaata cudur daar baan ka bixinayaa gabdhaha Soomaaliyeedna waa ka raali gareynayaa gabdhaha walaalaha ah ee quruxda badan ee reer Djibouti waan ka raali gareyn baan siinayaa this website ba issue iska leh ilaa hadda ma xaqiijin karayo hatta haday Soomaali noqoto hatta anigu am down with it marka qodobka inta san uga baxaya hadii aan sii socono filekan wuxuu hadda noqday file ay dawladihii waaweynaayo caalamka ay dhamaantoodba friend baaritaano ku aadan filekan dhibaatadii uu Jeffrey Epstein uu geystay dadkii uu dhibaateeyay iyo dawladihii uu farageliyay dawladaha hadda furay baaritaanka officialka ah waxa kamid ah dawladda Poland la yiraahdo oo tiri baaritaan ayaynu sameeynaa waxaad baaritaan furay dawladda Ingiriiska waxa baaritaan furay dawladda Lithuania la yiraahdo ayadana qaaradda Yurub inay ku jirtaan u maleynayo iyo Turkiya iyo waliba dawladda Mareykanka marka inta hadda la ogyahay 6 dawladood oo waaweyn oo Mareykanka iyo Turkiya iyo Lithuania iyo Poland iyo Ingiriiska iyo mid kale ayaa waxay bilaabeen in la yiraahdo bal wixii dadka naga lagu sameeyay baan baaraynaa xoogihii baa lagu soo baraarugayaa mashaakil weyn oo caalamka ku soo kordhay bay noqotay saasa marka rabaan inuu ogaataan inay wuxuu ahayn wax yar oo kooban oo ku tirkuteena tahay musiibo meesha fadhida waxa jira sawir saacadii hadda la soo dhaafay Mareykanka si weyn loo hadalhayo oo aan anigu soo print gareeyay oo aan aad runtii aan ola yaabay sawirkan waa sawirkan aad arkaysaan markii aad sawirkan soo dhaweysaan waxaad arkaysaan in canug yar oo baby ah oo saqiir ah uu ninkaasu inta qabtay uu dabada ka qarinayo uu sii jeediyay lugaha marka aad fiiriso waa canug yar oo isleedahay ma 10 sano jirba waana dumar ayaa la qaninaya waxa hadda la leeyahay ciyaal badan oo la waayay ayaa waxa loo diiwaan gelinayaa in la cuni jiray subhanallah arintu marka hadda hor ay si noqdo marka sawirkaanu waa sawir si weyn loo hadalhayo laakiin arinta la xiriirta ciyaal baa la cunay iyo ciyaal kale la yahay iyo waxba la cuni jiray balse gooniya ayaan xogteeda aan u soo aroorin doonaa qodobka ugu dambeeya gabadha Aamina Maxamed la yiraahdo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Kenya Aamina Maxamed gabadhii la oran jiray oo gabadhana ayaa ka soo dhex muuqatay fileka Epstein file xilli aan xalay aan dul taagnaa oo aan magacyo kala duwan oo Soomaaliya aan ku fiirnay gabadhana waxay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Kenya xilliga message-ka gabadhan magaceeda ku qoran uu soo galayo email-ka Jeffrey Epstein waa xilligii ay Soomaaliya dacwada ka xareysay badda Soomaaliya waa xilligii ICJ ay isla aadeen Soomaaliya iyo Kenya marka xilligaas in ninka DB Wall ugu sareeya iyo Jeffrey Epstein ay gabadhaasi la kulmaan muxuu daarnaa kulankaas baddu la xiriiray badanada in la boobay qayb ka ahaayeen lama garanayo imaaraadku aad bay ugu wareegaan Israa'iil badeena aad bay ugu wareegayaan marka waa tilaabo kale oo xogteedu aysan dhameystirnayn wuxuu leeyahay ninka DB Wall iska leh Jeffrey Epstein waxaan la joogaa buu leeyahay
wasiir maxaa la yidhahdaa aamina xog kale kuma qorna waxay kala hadlayo iyo arrimahaasu meeshan kuma qorna waa suuragal marka inay content kale oo wixii laga wada hadlay iyo arrimo badeeda la xiriira iyo wax kale ku jiraan waan qodaynaa wixii aan ka helno muuqaaladeena dambe aynu ku fiirin doonaa ilaa ay inta aan xogaha Soomaalida ku saabsan aan ka dhameynayo kiiskan waan wadayaa haddii wax qaldamaan oo ku laabanaynaa inta saxana waan deynaynaa inta san muuqaalkan ku soo koobaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.